بروفيسور عبد اسماعيل سوتر بالوريسنا soo taariikhda waramay markaas wuxuu leeyahay goorta waddanka soo laabtay wax soo bartay oo waddankii circiiraya aan ibaada 8-meeyadii waxaanu maqlaynaa hogaamiyayaal leeyahay kuwa wax akhriya kuwa wax akhrin fariiqa kala joogaan waxaanu maqlaynaa oo marxaanti ka nahay maalin walba waxa la diraasinay dad guuleystay bal soo hadqaanay waxaan laga sheekeynaya anfacayaan waxaan yee muhiim u yihiin waxaan yee khusayaan wayna taas weydiinooyay dadkii anfacaysa waxa soo dhan oo laga hadlaayo oo ku saabsiisan tahay oo aqoonta ka baxsan academic maalin kasta laga hadlaayo waxa weeye dadka doonaya nolosha inay macna ku yeeshaan way ma aha dadka tirabeelka ah ee wahsada imilaha jooga waa dadka doonaya nolosha inay macna ku yeeshaan idan haddaad doonayso nolosha inay macna ku yeelato waxaan oo dhan adiga ayay ku khusayaan ha caajizin ha daalin hana ka dhargina siiwad waayahay maxaa qodobka sifada ugu horeysa oo muujinaysa in nolosha aad dadka khusayso arrimaha laga hadlayo dhan maxaa weeye sifada ugu horeysa waxa weeye in nolosha hadaf ku leedahay haddii nolosha hadaf ka lahayn maxaa laga hadlaa nolosha weyn hadaf ka leedahay waa inuu dadaalkaaga iyo aragtidaada iyo focuskaaga iyo waxa qabanayso dhan waa in hal meel waa in khusayaan haddii intaas oo dhan hal meel khusayn sidee bay ku noqon kartaa marka waafki hadaf yeelo waa nasiib darro maantay inaan hadaf lahayn oo jaamacad ku biiraya waa sax hadafkaaga weyn wax barato jaamacad ku biidho laakiin hadafkaaga gaarka ah muxuu yahay waa taas weeye wuxuu hadaf ku saacideeyaa marka inaad isu ururiso dadaalkaaga oo dhan midda ku xigta aan sheegaya waxa jirta wax la yiraahdo kelmad yar ka oranayo qawaaniinta nolosha qawaaniin beeleedahay qawaaniinta yaa maraya sunan kowniya baa jira dunida ka jira oo horumarka bulshada ku saabsan ee hogaamiyaasha ku saabsan ee ganacsiga ku saabsan maalin wax lagu sheegay ganacsiga guulaysto milyaneer ah lagu sheegay waxa lagu hogaamiye guulaystay oo intisaalo soo qaadan ku islaamka Rajab Tayyip Erdogan ka soo qaadan Mahathir Mohamad Malaysia ka soo qaadan karno Mohamed Mursi maxaa ku dhahay oo suurta galiyay Masar maxaa waxaan hogaamiyaal guulaystay arkaysa ganacsiga guulaystay arkaysa قوانين أرضي شرعة وجلستي باركسا وغاركود أيام في كشغينا يعني ولا أكونتي وامبرتين نوحول أكونتي وامبرتين ملاس ومرمرايا مع فرق ودوم حتى وهذا في دلال هذا بقى قوانين النورش قانون وكواد أكاكس وقاضنا أيه وحوي number one hard work hard work هذا بعد جسد صومها بيد بريز بح قيمها وعبلاش كل هذا مجرو قيمها يا دلالك وبعنتها بحي تدكم ماشي بقولك بحاول بقولك كنتو كبحي بقى maxaa isku faqrinaysaa handeg meel yiraahdaa hansir degba marka maxay qayno koowaad noo sheeg waxa weeye waxa quruxda badan halka laga sheekaynayo dadka meel laga shaqeeyay dadka aqoonta ku guuleysay dadka wax soo kordhiyay dadka halka maray ganacsi maray siyaasad maray maxaan ku dhahay xisaabaad maray dhaqaalayahan noqday cilmi baaris galay professor noqday waxa laga sheekaynaa xaax ma hadii cid walba hal xaax leedahay qiimana ma yeelateen laakiin maxaa weeye pay the price bixi qiimaha si aad halka u hesho qodobka labaad waxa weeye hadaf baa yeelatay qiimuhu u baahnaa baa bixisay maxaa taa kuugu xiga waa look for the opportunities raadi fursadaha maanta fursad baa haysataa fursad jaamacad arday inaad tahay waa fursad maanta bilow way waqti kaama tagin hadda cusub tahay ina waqtigaaga ka faa'iidaysatid oo qiimaysatid oo maanta arday 4 sano kadib aad waqtigaaga ka qoomamin waa fursad haysato marka fursada in laga faa'iidaysto oo internet ka mid yahay oo macallimiinta ka mid tahay oo jaamacadu ka mid tahay oo aqoontu ka mid tahay oo nabadu ka mid tahay oo muqarrar ka mid yahay oo dadxgalku ka mid yahay maanta fursad waxa weeye intaas oo ardayna barato soo hor fariisato waxa laga yaabaa anigu hadeer goorta halka hadlayo istaagay inay arday iskool ka soo baxayna kooban yihiin baa laga yaabaa laakiin fursad waxa weeye intaas oo dhan inaan dhaxgalo in macallimiinta barto inuu maanta iga hor hadlo macallin heer master ah oo heer PhD ah oo wixii dhiga waafsad helay marka waa fursadaha ka faa'iideyso waa qiinuhu labaad ee nolosha aan ku siinayo way yaa wax ku siiya waa ku siiyo qof doonayna wax noqoto weeye wax ku siiyo qof og ina wax noqon karo awoodaada iyo kartida ku kalsoon wax ku siiyo qof doonaya wax anigu ina noqdo wax ka fiican noqoto raalli kaaga ah oo kugu sheegaya balka warantay anigu waxa rabaa waxaan aan sheegayo ugu horreyn nafteen ku anfaca adigana in qaato baa rabaa okay qodobka ugu dambeeya ku soo gabagabeynay waxa weeye waqti kaama uu san tagin waqti wax la yiraahdo kaamid waqaynu noosh kamid kutub badan baa qortay kutuban kutaab arkaysayo oo ka hadlaya qodobka soo qaadanaya waqti kaama uu san tagin weeye maanta baa luqad baran ka dhaa hadii aad maadooyin iskool kulid soo dhisi ka dhaa maanta baad maxaa ku dhahay kuliyad badan yeelan kartaa waqti kaama tag waliba maanta jaamacada oo bilaabatay waqti baa haystaa qodobka ugu dambeeya ku soo gabagabeynaya marka waxa weeye maanta suuqa shaqada u diyaar garow adeero hodhoodii 4 sano kadib waqtigii ka tagay indha inta soo kala qaadato xagee loo shaqo taga maxaa shuruudo la isku xiraa xagee la maraa maxaa hodhoodii la wareeg waqtigu ka tagay maanta diyaar garow hadii luqad ahaan lahayd hadii noqon lahayd faculty-ga dhigan department-ga dhigan ta khabiir ku noqotidaaye
waxaa laga hadlayaa professor cabdi ismaaciil sabater baa la wareysanayay soo taariikhda ka waramaya markaas wuxuu leeyahay goorta waddanka soo laabtay wax soo bartay oo waddankii circiiraya aan ibaaday 80-yadii ama 80-yadii gadaasheedii oo aan laabtay Mareykan tagay waxa raadsanaya professor waxaan noqonayaa bara jaamacadeed baan noqonayaa maadaama Soomaaliya ka yimid lahjadaadu nooca tahay baad waxaad jaamacada Mareykan macalin ka noqoto wasaaxiibis baa dhahayay waa qaar ka aaminsan wax la noqon karo haabu yana noqonaya markaas muxuu afkiisa ka leeyahay 150 abaf macalin oo meesha ka professor PhD oo PhD waa baan ka soo dhex qaaday inuu madow Soomaaliya buu leeyahay idan waxa weeye si aan fursad ah oo hada Google go to YouTube and search raadi shaqooyinka laga soo dejiyo koonaheena ee goolis ee maxaan ku dhahay bangiyada ama shirkadaha waaweynka kay ugu yaraan 9 qof oo fadhiya waxayna ka dhex kacdo baa rabaa yaa ka dhex kacaya maanta isu diyaar garo waxa baranayso khabiir ku noqo aad baa mahadsantihiin guul baan idin hijeenaya insha Allah